mas-uuliyiinta dowladda hoose magaalada Berbera ayaa saaka waxa ay gubeen 86,000 oo bacmiiko ah. Maamulka dowladda hoose magaalada Berbera ayaa sheegay inay bacahan ka soo arooriyeen goobaha ganacsiga kala duwan ee ku yaala guud ahaan magaalada Berbera. Waxaanay sheegeen inay fulinayaan amarkii dhawaan ka soo baxay xukuumadda Somaliland kaasoo ahaa in dhammaan la joojiyo bacaha. Ugarintii isagu waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose iyo sidoo kale agaasimaha waaxda maaliyadda ee dowladda hoose magaalada Berbera. Magaalada anagoo raacayna xeerkii baarlamaankeena ansixiyay ee ilaalinta deegaanka magaalada iyo dukaamada iyo bakhaarada ayaa laga soo ururiyay bacahan anagoo xeerka ilaalinta deegaanka dabaqayna alaab aad u badan weeyaan oo dhowr 80,000 oo bacood. saaka halkan waxaan u joognaa inaan gubno baco laga soo ururiyay magaalada Berbera. bacahaasi tiradoodu waxay gaaraysaa 86,000 oo xabadood bay gaaraysaa oo isugu jira bacahan loo yaqaan bacmiikada. run ahaantii ka dawlad hoos ahaan ama ka qaran ahaan laguma raaxaysanaya mar hali lagama aha dhaqaalaha bartan ku gubanaya mar walba la gubayo, laakiin waxaan mar walba isbarbar dhigaynaa inuu eegaynaa waxa weeye anfaca uu sheegani noo leeyahay iyo khasaaruhu noo leeyahay sheegana. dowladda Jamhuuriyadda Somaliland taa ka duulaysaa dowladda hoose fulinaysaa siyaasadda guud ee qaranka. markasta waxaanu eegaynaa shayga dalkeena iyo dadkeena maxaa anfac inaga soo gelaya ama maxaa khasaare uu ina gaarsiinaya. sida khubaradu deegaanka ku shaqada leh ay sheegeen bacahani waxay noo leeyihiin dhib aad u fara badan. ugu dambeyntii isagu waxa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Berbera maayir Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin waxaanu ka waramay talaabadan ay ku cirib tirayaan bacmiikooyinka. waa hawl shaqooyinkan qabanayntooda badan waa hawlaan ku faraxsanahay, laakiin shaqadan ku faraxsanna ma aha shaqaadu wax xunnahay. sababahan ugu xunnahayna waxa weeyaan 3 jeer ayay waxaan dhibaato inagu hayaan. sharciyan marka hore waa mamnuuc oo qaranku wuxuu isla qaatay in baacuhu mamnuuc ka yihiin dalka. qodobka koobaad waxay nagu dhibayaan oo ugu xunnahay in magaalada ku hayaan beec ahaan. magaaladii oo la nadiifiyay oo laga shaqeeyay ee bacdu soo duulaysa dhirtii bay qabsanaysaa, waxay bixinaysaa waji xun iyo tilmaam xun bay bixinaysaa. marka labaadna waa ka xunnahayo deegaankii hadday badda gasho iyo hadday bariga gashaba waxyaalo ku keenaysaa oo waa waxa loo mamnuucayba. wuxuu qaranka dhan u qaatay in loo mamnuuco bacaha oo waxyaalada deegaanka ku keenayo. marka saddexaadna aad baan ugu xunnahayo waxaanu naqaanaa ganacsado markaa waa faa'iido doon maaha khasaaro doonba, inay weli ku dhaga adeegayaan oo ay ganacsatadii ku dhaga adeegayaan. aad bay noo damqaysaa in qof ganacsada ah inta meheradiisa la galo laga soo saaro wax la xajeclihiisa ka mida oo uu lacag ka raadinayey in laga qaado ama lagu xidho oo lagu maxkamadeeyo dabeedna la gubo. intaa yar imka idiin muuqataa waa 86,000 oo xabo, 86,000 oo midh weeyaan. haddii 86,000 midh lagu sii daayo magaalada. waa Xamse Jaamacire, telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Berbera.